السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودياشا قيمها أي قدرتها جمدا بين كستو الدنيا ذاك جوجتا وحن الله يهاي كسولو هذا عد مجيد نطوي ومرك لي برنامج كيني عافي ماتك وين تطبعات كسو قادن دون قيب كلو حيس بدن هيك فقانينا داوديا يسو دوادا إلى داودا مقالك waayahay daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa dhiig la'aanta ama dhiig yaraanta iyo waxyaabaha sababa iyo sida loo xallin karo ayaynu insha Allah taala daawadayaal ku soo qaadan doonaa muuqaalka ee soo dhawaada dhiig la'aantu waa yaraanshaha cabir ahaan ama tiro ahaan unugyada dhiigga cas ee ku jira jirka bini'aadamka waana xaalad jirka uu galayo marka uu waayo dhiig ku filan oo ah unugyada dhiigga cas ama hemoglobin HB ama hemoglobin oo ay Soomaalidu sida wacan u yaqaanaan ayaa waxa uu yahay qayb aad u weyn oo kamid ah unugyada dhiigga cas waxa uu na jirka dhamaantiis siiya oxygen isagoo ka soo qaada sanbabada dhiig la'aantu waa waxa ugu caansan ee xaaladaha dhiigga saameeya cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday 5.6% in dadka Mareykanka ku nool ay saamayso dhiig la'aantu halka qiyaas ahaan 60% in ka badan ay saamayso dhiig la'aanta dadkeena Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka iyo caruurta iyo dadka qaba cudurrada ku daahay ama loo yaqaan chronic diseases marmarka qaar dad ayaa inooga dhinta dhibaatooyinka ka dhashay dhiig la'aanta darteed haddaba kaale aan isla fiirina daawade waxyaalaha sababa dhiig la'aanta qofka oo jirkiisu waayo nafaqo ku filan 2 qofka oo dhiig baxa 3 qofka oo qaba cudurrada ku daahay ama waxa weeye cudurrada inta badan aan hore u soo ifbixin ee loo yaqaan chronic diseases jirka oo soo saari waaya in ku filan unugyada dhiigga cas haddaba daawade mar kale aynu isla eegno calaamadaha lagu garan karo dhiig la'aanta garaaca wadnaha oo fara badanta ayaa lagu garan karaa calaamadaha lagu garan kara kamida 2 daal fara badan oo qofku waxa weeye dareemo 3 daciifnimo qofku yacni ama tamar darro inuu qofku dareemo 4 qofka oo rabitaanka cuntada waaya ama waxa weeye amateed qofka amateed la'aan ku dhacdo 5 maqaarka iyo ciridka oo cadaan noqdo qofka haddaba daawade isla garanay calaamadaha sideen ku ogaan karnaa inuu qofku dhiig la'aan ay hayso waxaynu ku ogaan karnaa in qofka aynu la yeerano waraysi 2 in qofka aynu sameeyno indhayn iyo inaynu qofka waxa weeye ogaano culayskiisa inta uu yahay ama inta kilogram ee uu yahay in qofka aynu dirno dhiigag si aynu ogaano HB-giisu inta uu marayo waxyaabahaas ayaa kamid ah sida lagu ogaan karo sida ayaan ku xallin karnaa haddaba dhiig yaraanta ama dhiig la'aanta waxyaabaha lagu xallin karo qofku dhiig yaraanta lagu xallin karo waxa kamid ah inaynu qofka siino cunto dheellitiran ama wax loo yaqaano balanced diet sidoo kale qofka inaynu siino daawooyin ay ku badan yihiin vitamin B12 iyo folic acid waxa kale oo aynu ku daweyn karnaa oo aynu ku xallin karnaa qofka inaynu u shubno dhiig oo qofku tusaaladeena dhiig yar la'aan hayso ama dhiig yaraan hayso in qofka dhiig loo shubo qofka oo in loo abuuro dhuux kaasoo soo saara dhammaan dhiigga noocyadiisa kala duwan oo dadka qaar waxa weeye dhuux bay baahay waayo dhuux waa meesha soo saarta dhiigga marka dhiig far badan soo saaro waxa weeye noocyadiisa kala duwan inuu soo saaro in qofka dhuux loo sameeyo ama loo abuuro waxyaabaha lagu daaweyn karo ama lagu xallin karo waxa kamid ah qofka in laga daaweeyo infectionka oo qayb lixaad ka qaata imaanshaha dhiig la'aanta qofku inuu dhiig la'aan qaado infectionka ayaa qayb ka ah marka in laga daaweeyo guntiga gabagabadii daawadayaal bulshadeena Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay markasta cunaan cuntada dheeliga tiran gaar ahaan in la qaato cuntooyinka gaar ahaan in la ogaado cuntada dhallaanka iyo hooyooyinka nuujiya
iyo kuwa uurka leh waxaana wanaagsan inaan badsano cunista digirta ukunta muuska midhaha waliba gaar ahaan sida cambaha khudaarta cagaaran lawska liinta hilibka casaanka caanaha iyo cuntada leh qolofta dhammaan wadankeena hodan ayuu ku yahay cuntooyinkaas waxaan jeclaan lahaa inaynu ka faa'iideystaan oo ay ummadeenu waxa way ku baraarugaan muhiimadda ay leedahay si aynu ugu yaraato saameynta dhiig la'aanta ay dadkeena ku hayso intaas aan daawadayaal ku soo koobi lahaa intaynu ku kulmi doono muuqaalkan mid